kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel kastooda caalamka ka joogtaan oo warbaahinta degdeg TV fadlan hadday tahay markii ugu horeysay soo boqoto channelkan ama aad muuqaalka daawanayso waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe garayso channelka gamaleelkan aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada xilli walba halkan aan soo gelino like saar gacanta ilaahay ha ku barakee aayar muuqaalka like saar siina share garay asxaabtaada la wadaag qaybta hoosena falcelin nadiif ah ka soo dhiba muuqaalkan haddaba waxaa bartiisa Facebook ku shaaciyay fanaanka Khadarkeeyo 6 saac ka hor xilligan haatan aan idin hadlayo wuxuu bartiisa Facebook gaar ahaan page-ka uu ku leeyahay barta Facebook oo ugu qoran magaciisa rasmiga ah Khadarkeeyo isla markaana page-kiisa rasmiga oo nahayn page been abuur ayaa wuxuu ku shaaciyay sawirka gabar ku nool magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Aisha Dhoomey taas oo ku soo dul qoray marwada mudanaha waa hagaha noloshayda waana iftiinka qalbigayga dad fara badan ayaa comment kaga dhiibtay arinkaasi ayadoo aan la ogeyn sababta keentay xilligan in uu afaaro jacayl ama inuu jacayl ku soo bandhigo bartiisa Facebook ayadoo aysan jirin cadeymo kale oo muujinaya in xiriir jacayl uu ka dhaxeeyo isaga iyo Aisha Dhoomey haddaba dad fara badan oo isticmaala barta Facebook ayaa qaybta commentiga aad iyo aad uga soo dhiibtay aaradooda iyadoo fanaanka Khadarkeeyo lagu xamanayay in ay isqabaan gabar ku nool wadanka Mareykanka taasoo 2 caruur u dhashay Khadarkeeyo oo ay lahaatan aan soo bandhigin jacaylkiisa rasmiga ayaa maanta hadalkaasi ku soo qoray barta Facebook iyadoo ay ka falceliyeen in ka badan 3,000 oo qof muddo 6 saac gudaheeda haddaba arinta jirta ayaa gabadhan ku nool magaalada Muqdisho isla markaana lagu magacaabo Aisha Dhoomey dad fara badan ay ku barteen barta TikTok iyo Instagram-ka iyadoo wiil ay dhashay inta badan ay iskala soo duubaan muuqaalada ayaa u muuqda mid ay kaga imaan karto hanjabaado fara badan maadaama Khadarkeeyo inta fara badan uu jacaylkiisa uusan soo bandhigin haatan ay u muuqato in gabar ka daaweyn uu soo bandhigi doono ayadoo dadka fara badan ay comment ka dhiibanaya postigaasi uu soo dhigay barta Facebook ay ku eedeynayaan in islaan ka weyn isla markaana uu jacayl u soo bandhigtay Khadarkeeyo oo kamid ah fanaaniinta ugu daadayar gudaha magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid ay soo wajahayso carqalad maadaama la sheegay in aysan u qalmin gabadhaasi lagu magacaabo Aisha Dhoomey oo ka tirsan gabdhaha ku nool magaalada Muqdisho isla markaana isticmaala barta Instagram-ka iyo TikTok haddaba Khadarkeeyo ayaa u muuqda mid ay soo wajahayso marxaladaasi iyadoo lagu xamanayay inay hore isku qabi jireen fanaanada Xaliimo Gobaad inkastoo wararkaasi markii dambe ay been abuur isku bedeleen hase ahaatee la sheegay in jacaylkiisa rasmiga ay ku nooshahay wadanka Mareykanka isla markaana ay u dhashay 2 wiil haddaba arinta meesha taagan ayaa noqon doonta hadalkan uu ku soo qoray barta Facebook Khadarkeeyo ma noqon doonta mid prank mise mid si kale loo fasirin karo oo in jacayl rasmi ah uu ka dhaxeeyo Aisha Dhoomey iyo Khadarkeeyo iyadoo la ogsoon yahay in toddobaadkan uu soo qaaday hees gabadhaasi uu qaaday isla markaana tan ay ku soo aadayso iyadoo hadalheynta heesta ay meesha ay sii taagan tahay isla markaana postigan uu soo dhigay 6 saac ka hor ay u muuqato mid meesha ka saaraysa mugdigii ku jiray oo inuusan jacayl ka dhaxeyn labadooda hase ahaatee tan ayaa u muuqata mid jacayl rasmi ah ka dhaxdhici karta Khadarkeeyo iyo Aisha Dhoomey haddaba wixii ku soo kordha wararkaasi iyo arrimaha la xiriira xiriirkan qarsoodiga ee xilligan soo ifbaxay ee Khadarkeeyo iyo Aisha Dhoomey waxaad kala socon kartaa halkan fadlan muuqaalka like saar siina share garay asxaabtaada la wadaag si ay dad badan oga helaan